guri kasta oo ku yaala Muqdisho iyo kaamiro aan si kala u dhigo caasimadda Muqdisho waxa ay u guuri doontaa in ammaankeeda ay xaqiijiyaan kaamirooyinka CCTV-da loo yaqaano amar ka soo baxay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu hirgelinayaa talaabadan waxaan idin soo gudbin doonaa xog arintaasi la xiriirta waxaana Yuusuf Maxamed Axmed haddii aad igu cusubtiin fadlan ku soo biir oo ka mid noqo saaxiibada igu xiran si aad halkan uga heshaan warar warbixino muuqaal aan had iyo jeer halkan ku soo baahiyo noqo daawadaha ugu horeeya ee xogaha wararkeena aan ku bilaabo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa amartay 20 degme ee caasimadda Muqdisho ka jira in guri kasta oo caasimadda ku yaala lagu xiro kaamirada CC la yiraahdo ee sida qarsoodiga wax u duubto waxa la sheegay in hirgelinta amarka dawladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay durba laga bilaabay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxa la tagay qaar ka mid ah guryaha ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir oo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka NISA ay dadku gaarsiiyeen amarkan ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya ee la rabo in shacabka si toos ah ay u dhaqan galiyaan guri kasta oo caasimadda ayaa loo qabtay in 15 cisho gudahooda ay ku xirtaan kaamirada CCTV oo kol hore ay dawladda federaalka Soomaaliya ku guuleysatay in lagu xiro xarumaha ganacsi ee ku yaala caasimadda Muqdisho iyo suuqyada waaweyn ee caasimadda ku yaala ee dadka sida weyn uga tukaameystaan amarkan ayaa la aaminsan yahay in uu yahay mid lagu doonayo inuusan baxsan dambiile kasta oo faldambiyeed ka geysta caasimadda Muqdisho kaamirooyinkan waxay sahleen in la helo raadadka dambiilayaal doonaya inay isqariyaan waase kuwa ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyadoo oo la soo bandhigay cadeemo muujinaya goobihii ay mareen iyo talaab kasta oo dhaqdhaqaaqooda inta ay ku jireen caasimadda Muqdisho oo ay kaamirooyinka si toos ah u duubayeen waxaana Muqdisho ay noqonaysaa mid ka guureysa in ammaankeeda lagu sugo qori waase mid u guureysa in ammaankeeda lagu xaqiijiyo kaamirada CCTV-da ee wax duubta shacabka caasimadda Muqdisho qaarkood oo xogtan in la soo wadaago waxa ay sheegeen in talaabadan ay tahay mid si weyn ay ugu qanacsan yihiin maadaama dawladda federaalka Soomaaliya ay in badan xaqiijinayso amniga badqabka muwaadiniinta caasimadda Muqdisho iyo si la mid ah ka hortagga xadgudubyo loo geysto shacabka kaamirooyinka lagu xirayo guryaha ku yaala caasimadda Muqdisho falanqayaasha ammaanka waxa ay qabaan in si weyn ay wax uga bedeli karto ammaanka caasimadda Muqdisho sida kol horeba looga dareemay isbedelka amni ee laga dareemay xarumaha ganacsi ee ku yaala caasimadda Muqdisho iyo suuqyada oo markii lagu xiray kaamirada CCTV-da ay yaraadeen falalkii lidiga ku ahaa ammaanka ee ka dhici jiray hareeraha goobo qaarkood oo qatar amni looga baqi jiray ayay dadku bilaabeen inay si toos ah u tagaan iyaga oo kalsooni badan ku qaba kaamirada CCTV-da ee sida qarsoodiga wax u duubta Muqdisho waxa ay arintan kula tartamaysaa isla markaana loolan adag ay kula jirtaa caasimadaha dunida ee hormaray oo si toos ah looga hirgeliyay talaabadan la xiriirta in guri kasta lagu xiro kaamirada CCTV-da la yiraahdo ee wax duubta isla markaana si toos ah loola socdo dhaqdhaqaaqyada goobta ay ku xiran tahay hareeraheeda waxyaabaha ka dhacaya hadaba daawade adigu sideed baad u aragtaa in guri kasta oo caasimadda ku yaala lagu xiro CCTV si ammaanka caasimadda loo xaqiijiyo aragtidaada qaybta hoose comment kaga soo dhiibo ilaa dhamaadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaartayna waan kaaga mahadcelinayaa nabadgelyo